madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku guuleystay doorashadii lixaad oo muddo xileedkeedu yahay 5 sano sida ay shaacisay wasaaradda amuraha gudaha ee dalka Djibouti xilli doorashada ay qaadaceen inta badan mucaaradka dalka Djibouti. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa helay in ka badan 97.81% codadkii la dhiibtay. Codbixintii Jimcihii ayaa waxaa ku tartamay musharax kaliya oo la loolamayay Ismaaciil Cumar Geelle oo la dhaho Maxamed Faarax Samatar. Xogta wasaaradda amuraha gudaha dalka Djibouti ayaa muujisay in Samatar uu galay kaalinta labaad isagoo helay 2.19% codadka 168,233 cod ee la dhiibtay. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sidoo kale ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee sanadkii 2021 taasoo ay qaadaceen inta badan mucaaradka dalka Jamhuuriyadda Djibouti isagoo helay in ka badan 97% codadkii la dhiibtay. Wuxuu markaas ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono sanadka dambe balse wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalka Djibouti bishii November ayaa meesha ka saaray xadka da'da ee 75 sano ee musharaxiinta madaxtinimada. Dadka dhaliila doorashada ayaa ku tilmaamay mid aan si dhab ah loogu tartamin halka taageerayaashuna ay ku doodayaan in hogaamiyaha 78 jirka ah uu xasilooni gaarsiiyay dalka ku yaal Geeska Afrika oo istiraatiiji ah. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xukunka hayay tan iyo sanadkii 1999 waana madaxweynihii labaad ee dalkaasi yeesho tan iyo markii uu xornimada ka qaatay dalka Faransiiska sanadkii 1977.